شيخ ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray dadka muslimiinta ahi inay ahaadaan kuwo ku midaysan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam sharciga iyo waxyiga ilaahay ku soo dejiyay nabigeena maxamed arrintaasina waa arrin warkeeda ilaahay ku cadeeyay quraanka kariimka ah oo rabbi subxaana watacaala wuxuu wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu ilaahay xarigiisa qabsada idinka oo dhan oo aan qaybsanayn ولا تفرقوا بر الله سبحانه وتعالى كلا تجينا اسمان دافنا هايس خلافنا مركل الله سبحانه وتعالى وحو قد يددك مسلمين تا هايس خلافك وحان u sheegay inuu sabab noqonayo in bila awood ay noqdaan oo ay fashilmaan cadawgoodana iska caabin kari waayaan wala tanaazacu fatafshalu tadhab riihukum markale rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka digay dadka muslimiinta ah inay la dhaqan noqdaan ku iyaga ka horeeyay ahaan jiray iyagoo diin wada sheeganay hadana kuwa iskhilaafsan rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri innal ladina farraqu diinahum wa kanu shi'a lasta minhum nabi maxamed alayhi salatu wasalaam isagoo rabbi la hadlayo wuxuu yiri kuwa diintooda ku kala tagay firqooyin noqday nabi maxamed uu shughul kuma leed kuwaasi bari ayaad ka tahay dayro ayaanay ka yihiin marka adillada muslimiinta uga digaysa inay firqooyin kala noqdaan iyo xisbiyo iyo jamaacaad ee amraysa inay ku midaysnaadaan kitaabka Ilaahay iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad bay u fara badan tahay qofka muslimka ahina waxyaabaha kale la dhoobdhoobayo waa inaanu raacin oo diin aanu ka dhigan ee uu noqdo qof waxyiga quraanka kariimka iyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam raacaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka muslimiinta laba xaalood midkoodun bay ku jiraan xaaladda kood waxay tahay inay yihiin dad leh dawlad oo nin madaxa oo muslimi uu taliyo xaaladda labaadna waxay tahay inay dad fawdo ku jiro oo dawladba ma laha salaam dawladda hore meesha way ka baxday mid cusub bedeshay ma jirto xaalatu fitna ay dadku ku jiraano way qaybsameeno waxay noqdeen mar hadduu kursigu banaanaado waa la isku qabsadaayo axzaab iyo jamaacaad iyo ururo iyo jabhado ay dadku noqdaan mid waliba kursigaasi ay u ordayso taasina waxay keentaa in ismaan dhaafaan kadib dadku inay islaayaan oo dhiigooda ay daadiyaan labada xaalood mid walba xukunkeeda ayuu noo sheegay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan inoogu sheegay xadiidka uu ka wariyay saxaabiga la Xudayfa ibn al-Yaman Bukhari iyo Muslim ba labadooda saxiix ay ku qoreen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka waramay fitanka dhici doona aakhiru zamaanka saxaabiga Xudayfa la yiraahdaa markuu weydiiyay rasuulka Ilaahay maxaan yeelaa wuxuu yiri talzamu jamaa'at al-muslimiin wa imaamahum waxaad laazimaysaa macna xubin kamida aad noqonaysaa jamaacada muslimiinta waayo waa muslimiinta oo dhan guud ahaan ama muslimiinta meel wada degan ee leh qof madaxa oo muslima oo u taliya oo iyaga waxa weeyaan hogaamiyo arrinkoodu isaga uu ku urursan yahay iyo imaamkooduna waa madaxweynaha muslimka taa ayaad laazimaysaa marka macnaheedu waa maxay ka hor iman maysid oo amar diida ku sameyn maysid la dagaalami maysid ururo ka hoos sameyn maysid iyo jamaacaad iyo dawlado qarsoon samaanta xaalku u yahay waxaan ogsoonahay dawladihii islaamka ayaa dad wadaadi waxay ka hoos sameeyeen dawlado kale wadankii madaxweynuhu leeyahay qolaa madaxweyne kala leh oo ka umada ka dhaxeeyaan ahayn iyagu ballan kula jiro oo ka amar qaato hadduu dagaalamaya hadduu yiraahdo nabad qaata ama dagaalka joojinayo amarkiisa ayay ku shaqeynayaan arinta noocaasana waxa laga yaabaa dadku inta badan inay dareemin ujeedada keentay waxa weeye xukun baa lagu socdaa oo dadka axzaabta iyo ururada samaystay diiniga ah ujeedadoodu ma aha dacwad qura dacwadu waa in dadka wanaaga la faro xumaanta laga reebo cilmiga la baro khayrka dadka loo soo jeediyo taasina ururo qarsoon iyo amiiro dadka aan ka dhaxayn iyo ajandayaal iyo xukum iyo kursi lagu carara iyo dagaal iyo hub iyo muslimiin lagu la dagaalamo iyo mudaharaad iyo kacdoona iyo waxaas oo dhan uma baahna waa inta in badan wadaadada kamida ay wadaan imaanta aad aragteen laakiin ajandaha arrinka ka dambeeya wuxuu yahay in xukum lagu gaaro ayaa la doonayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam taa ayuu ka digayaa marka uu amrayo qofka muslimka ahi inuu noqdo qof kamida jamaacatul muslimiin
ومدى إسلام كأه إنه يجاون أرور كجودة مسلمين تإنه يسوون حبين وكهذا ومدحوينها مسلم كائنة أمير كيسو نقضوا التلي وناقو كوادعي وحمانا كوادعي مايو وأولنا استحينا يا هدو أقبلوا أنا يسووا حاسوا خلافة يا وحي الله سبحانه وتعالى ودي السمين مايو حالة الله بعضها محي وحالة أنا أمد اللهين قف مدحة ومسلمة والتلو يكون رسنطاي حالة محلية لي حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام ويدي فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام حضانا إلى هاي المسلمين تو جماعة مديسان هي إمام وتليوه قامنية محانو يا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاعتزل تلك الفرق كلها فرقوين كاسو دن كفغو بو النبي عليه الصلاة والسلام علماء markay fasirayaan waxa yiraahdaan macnuhu waxa weeye xubinha ka noqonin markii madax la waayay ururada umadu ay u qaybsantay adigu xubinha ka noqonin waayo khashiyat alwuqu' fi shar waayo kulli way islaynayaan wana sida dhacdo wadinka arkay in meel walba ururadii diiniga waxa weeyaan ay isku laayeen marka sharka si aanad ugu dhicin iyo fasaadka xubinha ka noqonin marka mar haddaynu nahay dad muslimiina madaxweyne muslima ku hoos nool uma baahnin ururo madaxweynayaal gaar ah leh ummadii qaarna ay xubno ka yihiin qaarna aan xubno ka ahayn ummadoo dhan baa jamaaca ah amiirkooda iyo imaamkooduna oo madaxweynahaasi waxa weeyaan hogaaminaya haddii qofku uu doonayo inuu dacwad wadana dacwadu saaynu sheegnay uma baahna waxaasoo dhan uma baahna culimay u baahan tahay dadka diinta u dhiga wanaaga fara xumaanta reeba qadiyada xukumkana mar haddii madaxweyne muslim meesha uu haysto in loo diyaar garoobo qorshe loo samaysto sidii meesha looga qaadi lahaa ama dagaal lagaga qaado ama siyaabo kale dadkoo lagu kiciye waxa weeyaan wax banaan maba ahaba isaga ayaa dhibkiisana lagu sabrayaa suu nabigu calayhi salaatu wasalaam ina faray waa qadiyad dadka badan hawood dadka in badan oo kamid ah hawooda aan waafaqsanayn لكن هو شرعي والنبي عليه الصلاة والسلام اصبروا بول حتى تلقوني على الحوض صبر إلا حوض كدوشي صاد يقول كل ميسان صبر كأياني كتيرتا ومدى هجاج جدي وناج جدي هرمر كدي دجناشة دي دولة نمدلو ويهدي له الصبر وايو وحدعيا وحمان تسالياش يسائل عرقنا دولك الإسلام كدعيا دولك الإسلام كونقضي السيدا كيمها وحوشت يدقاق ويكونوا ليهين وكله كلا دنبين على كيرين كي حوق وينون كتاكت الضرر وحويان وكو استاغو وحنا حزابة الدين جانا ولا جربي وواحدة مدهد سوت شري وحنا الأركيون إن كودن بيصون إن سيقة بسنطو إن كودن بيصو إن مركز دنبي أي دجالوا لجلان دولة الإسلام كاي شعوب تي مجتمعات كإسلامية إن يجوا مركز دنبي وحوين إسلايان ودي جودا حلاشدان marka wax shariicadu ay banaynayso ma aha dhalinyartana anigu waan uga digayaa gaaraan kuwa cilmiga barta ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa barta baan leeyahay inta aad garanaysaana ummadan islaamka aad ku dhexnooshihiin si xikmad iyo cilmi uu ku jiro u bara oo ugu sheega umana baahnidin madax aan ahayn madaxda ummadda waxa weeyaan ka dhaxaysa ee taladii awooddu gacanta ay ugu jirto ilaahayna subxaanahu wa ta'aala taayna